jacaylbaan dhex muquuraya miraalihiisi midigtaygu qaadiyo mawjadba isiga muqdisho oo wajiga ku haysa badweynta Hindiya waa magaalo aad qadiim u ah magaceedana waxa la yaqaanay waqtigii faraacinta Masar 6 ama 7 qarni ka hor magaalada Muqdisho waxa lagu dhisay masaajidyo iyo minaarado aad u qurux badan kaasoo ka haray raadkii taariikh ku yeelashadii Carabta iyo kuwii Bershiya Muqdisho ma jirto magaalo u eg oo Afrikada madow ah maanta Muqdisho waa caasimada Soomaaliya dhismo casri ah iyo kuwa kale oo aad qadiim u ah dad badan iyo gawaari kala duwan ayaad ku arkaysaa meel walba waxaad kaloo aad ku arkaysaa magaaladan Muqdisho ganacsiyo aad u tiro badan oo dadku ay ku kala iibsanayaan alaabo ay isticmaalaan maalin walba kuwaasoo isugu jira alaabooyinka guryaha cuntada iyo waxyaalo aad u kala badan oo kala duwan Soomaaliya waa wadan xor ah laga soo bilaabo sanadkii 1960kii waana wadan aad u weyn oo leh xeebaha kuwa ugu waaweyn ee Afrikada xorta ah iyadoo lagu qiyaaso wadanka Soomaaliya inay ku nool yihiin 1980kii oo waqtigan ah dad u dhigma ilaa iyo ama ku dhow ilaa iyo 3 milyan oo qofood magaalada aad ay u ballaaratay waana loo jeedaa halka saac ama 7 subaxdii xafiiska milishiibiyada ama dawladda hoose ee magaalada Muqdisho saad u jeedaan dadka waxay saf ugu jiraan dhulbixintii milishiibiyada ee Muqdisho ay ku sameeyso dadkan oo isugu jira qaxooti dad reer guura ah oo go'aansaday inay magaalada qayb ka degaan rabana in loo fududeeyo si ay u dhisan lahaayeen dhulka la siiyay xafiiska gudihiisa waxa fadhiya shaqaalaha dawladda hoose ama milishiibiyada iyagoo ka wada hadlaya si ay u dhulka Soomaaliya ku yaala waxa iska leh dawladda bil kasta lootooyinka la qaybiyo waxa la kala siiyaa qof walba oo dhul la'aan ay hayso dhul kasta oo Soomaaliya ku yaala waxa iska leh dawladda dhulka dhibisiisa waxa ku shaqale geometriga dawladda hoose ee la yiraahdo Cabdulqaadir shaqooyinkan aan qabano waa shaqo socota maalin walba saad u jeedaan dad badan ayaana sugaya annagu shaqadeena waa in aan dhul siino iyaga ayaa guryaha dhisanaya dhulka ugu yar aan bixino cabirkiisa waa 13 lagu dhuftay 3 mitir kan ugu weyn cabirkiisu waa 20 mitir lagu dhuftay 20 dadka aan siino aad ayuu u yeeyahay dadka intooda badan waxay u rabaan dhulka iyagoo doonaya inay ku aqal galaan ama ay ka guuraan xaafadaha qadiimka ee magaalada Muqdisho iyo waxa kale oo jira dad dhulka baadiyaha ka yimaada arkana markuu ugu horeysa Muqdisho rabana inay ku noolaadaan dhibaatooyin badan ayaanu kala kulanaa dhulbixintan dhibaatooyinka aan la kulano dhulbixista waxa kamid ah sida aad u jeedaan islaantan ee hor fadhisa waxay ka soo guurtay baadiyaha waxayna leedahay waxaan doonayaa in la isiyo dhul aan ku dhisto guriyo dhulkaas oo ah meesha aniga aan doonay in laga siiyo
markaan weydiiyey dhulkii aan ku siiyey maxaa ku dhacay waxay leedahay dhulkaad isiisay aad ayuu u fog yahay ma tegi karo dhibaatadiisna way badan tahay ee waxaan doonayaa meel dhow inaad isiisid aan kuu duceeyey waa inaad ii dhaqsataa mar dhow sidaad u jeedaan waxaa bilowday dhulbixintii iyadoo geometriga dowladda hoose ee muqdisho uu cabirayo dhulkii la siin lahaa dadweynaha sharciga dowladda hoose ee muqdisho wuxuu qorayaa haddii dhul lagu siiyo waa inaad guri ka dhisataa markiiba alaabna aad keensataa si aa ugu noolaatid dhulkaas dhulka aad ayuu oomano u yahay iyadoo sida biyo loo heli lahaana aad iyo aad u dhib badan tahay meelaha qaarkood ee ka tirsan magaalada tan muqdisho Adesso questo è già esecutivo. talyaaniga ku nool magaalada muqdisho ilaa iyo wakhtiga isticmaalka waxaa lagu qiyaasay inay ahaayeen ilaa iyo 40,000 sanadkii 80meeyadii waxa kaliya oo ku haray dhowr boqol waxaa jira nin talyaani ah oo la yiraahdo Garfagnano wuxuu qaatay dhalasho Soomaali ah isagoo diinta muslimkana qaatay iyo geometriga la yiraahdo Carlo Bertini oo ka yimid magaalada Reggio Emilia dalka Talyaaniga isagoo u shaqeynaya dowladda hoose ee Muqdisho Questo è il bozzetto. Sì, questo è già esecutivo. meeqa sano ayaad u shaqaysaa dowladda hoose ee Muqdisho maanta ma bilaabay shaqadan 1936 ayaan shaqada igu horeysay say ku dhacday ilaa iyo wakhtigaas inaad shaqadan joogtid aad ayaan uga helay magaaladan maxaa dhacay Soomaalidu ma baran miyaa shaqadan maalintay bartaan waan ka tegayaa wadankan say ku imaatay magaalada Muqdisho waxaan muqdisho imid 1936 anigoo u imid dagaalkii Itoobiya iyo Talyaaniga dhexmaray awgiis markii dagaalku dhamaadayna halkan ayaan iska joogay waxaan shaqo ka helay dowladda hoose ee Muqdisho ama minishiibiyada iyadoo shaqada la bilaabay December 1936 kowdii Janaayo 1937 waxaa albaabada u furmay dadweynaha magaalada ma aragtay siday u fiday magaaladan aad ayay u fiday iyagoo ay ka hor yimaadeen dhibaatooyin aad u fara badan kuwaasoo ay ka mid yihiin deegaanka bulshada jidadka iyo kan ugu weyn oo ah dhaqaalaha magaaladan Muqdisho oo ah magaalo dhalatay lacag la'aan dad wax bartay oo Soomaali ah ayaa inta badan dibadaha ka yimaada waxayna yiraahdaan lacagaha wadamada Yurub lagu dhiso xataa wax u dhigma ma jiraan halkan wadankan petrol ma leh laakiin waxa la rajaynayaa mar dhow in Soomaaliya petrol laga helo kullay hadii petrolka la helo waxa loo maleynayaa dhibaatooyinka haysta wadanka Soomaaliya qaas ahaan magaalada Muqdisho inay isbedeli doonaan waxa dhacda mararka qaarkood in xataa aan la helin gawaaridii ama baabuurtii ay isticmaali lahaayeen dowladda hoose ee Muqdisho sida loogu soo cabiro dhulka la siinayo dadweynaha Soomaaliyeed dhismahan aad u jeedaan waa sarta minishiibiyada ama dowladda hoose ee Muqdisho waxay ahaan jirtay dhismihii laga xukumayay 10kii sano u dhaxaysay 1950kii ilaa 1960kii xukuumaddii ku meel gaarka ee Talyaaniga loo yaqaanay Fiduciaria kaasoo xukumayay ilaa iyo Soomaaliya ka hesho xornimada 1960kii xafiiskan weyn ee dhismihiisa waxaa hadda fadhiya duqa magaalada Muqdisho Yusuf Ibrahim Abu Ras طبعا halkan hadaynu xafiiskan u noqono xafiiskan wuxuu leeyahay taariikh aad u dheer sidaad la socotaan waxaa degnaan jiray wakiilkii dowladda Talyaaniga u qaabilsanaa ku meel gaarkii xornimada Soomaaliya anigu waxaan xafiiskan ka shaqeeyaa muddo 5 sano ah
shaqadaydana kama duwana shaqo kasta uu qabto duq magaalo ama siindeko meel alla meeshu adduunka ka jiro sidaan la socono muqdisho waxay la kortay iyadoo aysan jirin wax plan ama ku talagal ah waana magaalo uu geedaha xagaarku ku yeelahay qoraxduna ay aad u kulushahay markuu kacaanka dhashay waxaa gacanta ku dhignay magaalo ay dhibaatooyinkeeda aad u fara badan yihiin kuwaasoo ay ka mid yihiin in qof walba uu ka dhisto guri meeshuu doonayo wadooyinku aan u fiicnayn korontada oo aad u yarayd magaalada waxa ugu daran waxay ahayd dhibaatooyinka guri la'aanta taasoo ka timid markii dagaalkii Ogaadeniya uu dhammaaday waxaana soo xog saaray dad badan oo qaxooti ah oo magaalada ku soo batay iyo dad badan oo ka soo guuray baadiyaha si ay ugu noolaadaan Muqdisho iyadoo ay taasi jirto qoys kasta Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay in guri iyo meel ku noolaado la siiyo marka dhalanaysa ha ku dhalato Soomaaliya waa wadan aad faqiir u ah dadka waxa soo gasha lacag aad u yar waxaana ka arkaysaa dadka Soomaalida markay suuqyada ay tagaan inay wax soo iibsadaan aad ayay ugu adag tahay lacagaha adag ee ama lacagaha qalaad Soomaaliya waxay ka soo gashaa dhoofinta kalluunka muuska iyo xoolaha nool lacagtaas oo ay ku bedeshaan batroolka looga baahan yahay wadanka Soomaaliya warshado sida u fara badan male waxa laga yaabaa inay ku yeelaan dhowr warshadood kuwaas oo soo saara dharka iyo cuntooyinka ay isticmaalaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ninkan waxa la yiraahdaa Ibrahim wuxuu ahaan jiray nin reer miyi ah wuxuu yimid magaalada Muqdisho muddo haatan laga joogo 15 sano wuxuuna go'aansaday inuu noqdo nin kalluumaysato ah waa kan ilmahayga iyo xaaskayga gabadhaydan waxa la yiraahdaa Xaawo Qaasim 9 sano ayay jirtaa gabadhan kale waa Boosteeya oo macnaheedu yahay tan wax walba isku dubarida 12 sano ayay jirtaa Yariistan waxay jirtaa 6 sano sanadkii koowaad ee iskuulka ayay bilowday tani waa xaaskayga oo 30 jir ah iyadoo aan ku guursaday da'aad u yar iyo Qatra iyo Madiina oo 8 iyo 14 sano kala jira intaasi waxay ahaayeen qoyskayga oo ka kooban 5 gabdhood iyo xaaskayga muddo markaan joogay magaalada Muqdisho ayaa dawladda hoose waxay siisay dhul guri aan ka dhisto taasoo u qasabtay inaan bedelo nolosheedii hore ee reer miyiga ahaa markii guriga dhismihiisa bilaabay waxa ii soo degashay inaan guursado oon xaas iyo caruur aan yeesho si aan nolosheeda waxaan uga bedelo hal qol adoo kuna nool 4 qofood oo qaraabadaada ah nolosha soo dhib ma ahan Ibrahim haddaad u maraysid nolosheeda inay adag tahay waxaa fiican lahayd inaad aragtid saxaaraha oo ah dhulkii aan ku dhashay kuna soo koray intaanan imaanin Muqdisho ilaa wuxuu ku kacay 6,000